جاليدها ogaadeenaya ayaa ka furmay magaalada Pretoria ee wadanka Koonfur Afrika sidoo ay ka soo qayb galeen qaar ka mid ah jaaliyadaha ogaadeenaya ee dacalada adduunka ayaa sidoo kale waxa ka soo qayb galay dhammaan faracyada jaaliyada ogaadeenaya ee wadanka Koonfur Afrika iyadoo jaaliyada martigelisay shirkan ayaa waxa ka soo qayb galay wafdi uu hogaaminayay gudoomiyaha jabhadda wadaniga xoreynta ogaadeenaya Admiral Maxamed Umar Cismaan oo ka mid yahay gudoomiyaha hoggaanka arrimaha dibadda ee jabhadda wadaniga xoreynta ogaadeenaya Mudane Cabdiraxmaan Sheekh Mahdi Maatay qaar ka mid ah ka soo qayb galayaasha shirka oo aan la dhex wareegnay mikrofoonka Ilays TV ayaanu wax ka weydiinay qaabka uu dhacayo shirkan isagoo socon doona shirku muddo 3 maalmood ah wadana magaca Nuur Cabdisalaam sanadkan waxaad nasiib u yeelateen in lagu qabto shirweynaha jaaliyadaha ogaadeenaya wadankan Koonfur Afrika oo ay ku nooshahay jaaliyad aad u baaxad sidoo aragtaa والله آدي بان وفرحسنا هذا ونسوا دويننا أنا لنا ومركي ورسالة لو قلت شوينها جالدها وقاعدين يا قارة أفريقيا مركا واحد نصيبي رتبوتك صوب أفريقيا آدي بان وفرحسنا هنا أصلا في لو قلت شوينها جالدها لو قلت صوب وأنتي وحنا لنا إلى دل فرق بدن كسوق قلنا أو بشلة قيمة هذا كل الدولة dadkan ma dad ka wada shaqeeytaan wadanka Koonfur Afrika mise jaaliyada kale oo idiga yimid beddelka walaal wari tamaan dadkan waxa kale yimaadeen qaaradaha adduunka waa maadaama uu shirweynaha jaaliyadaha adduunka uu yahay wadaniga saas awgeed caalamku dhanba kala yimaadeen iyo guud ahaan wadanka South Africa kala yimaadeen sidoo aragtaan marka shirkan in maanta lagu qabto wadankan idinku aad joogtaan oo ahayd markii ugu horeysay ee lagu qabto sidoo aragtaan waxaan dhihi karaa waa nasiib aad iyo aad u wanaagsan inay jaaliyada jooga ee South Africa inay shirweynaha martigeliso jaaliyadaha ogaadeenaya caalamka aad iyo aadna waan u faraxsanahay sanad kale in lagu soo celiyo aad baan u reenahay aad oo maasantahay kaasna wuxuu xubin ka tirsan jaaliyada ogaadeenaya wadanka Koonfur Afrika oo uu waramayay Ilays TV